wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Xasan oo booqasho rasmi ah ku joogay muddo 4 cisho ah dalkani Koonfur Afrika ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg u sameysay casho sharaf seher sare loo soo agaasimay taasoo isugu jirtay soo dhaweyn sagootin iyo dardaaran waxaana xusid mudan in casho sharaftani loogu sameeyay Hotel Noor International oo kamid ah hoteelada ay Soomaalidu ku leedahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. casho sharaftan oo ka dhacday magaalada Johannesburg ayaa waxa soo abaabushay jaaliyadda Somali Community Board of South Africa oo kaashanayso ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika waxaana xusid mudan in martiqaadkani uu maalgeliyay ganacsada Yuusuf Kulmiye Culusow oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika mudane Ismaaciil Cabdulla Soomane waxaana wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminaya ku amaanay doorka saliimka ah ee ay ka qaateen sidii amniga iyo kala dambeyntii dib loogu soo celin lahaa dalka Soomaaliya. dawladdan system ay ku shaqeysaa nidaam ay ku shaqeysaa qofkii aan raali ku ahay nidaamka ku shaqeysa ciidan dibadda ka kaysata shisheeye haddii cid kale heshiis la gasho mas'uuliyad aan saarno ma aha waxay saaran tahay idinka waxay saaran tahay dawladda marka in meelo aan wax laga raadin ay jirin qof kasta inuu hogaansamo aniga saan aaminsanahay nidaamka dawladeed annaga u baahan ubadkeena wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Xasan oo goobta khudbad dheer ka jeediyay ayaa ugu horeyn ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay isagoona ugu xog waramay jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika ujeedada socdaalkiisa ka dambeysay iyo casuumad rasmi ah oo ka helay dalkani Koonfur Afrika oo ku tilmaamay inuu yahay dal muhiim u ah geedi socodka qorshe howleedka loogu jiro xasilinta iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya. xaqiiqda way jiraan waxyaabo aan publicly loo sheegi karin oo ay weydiisteen ama weydiisanay way jiraan laakiin ama looga hadli karin in meeshaas looga hadlo anna waxaan soo bandhigay dhibaatooyinkeena baan meel walba aan taaganahay iyo sidii wax noola qaban lahaa baan ka hadlay wax kale oo gooni oo gaar ah oo wax ka wada hadlay jiraan. socdaalkan ay ku yimaadeen wadankani Koonfur Afrika wafdigan uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya iyo madaxa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya Axmed Faqi ayaa ku soo beegmay xilli wasiirada arrimaha dibadda ee xukuumadda Koonfur Afrika haweeneyda lagu magacaabo Mashabani ay ka soo saartay warbixin ay ku sheegtay in ay ku heshiiyeen iyada iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xasan in la soo celiyo xiriirkii diblomaasi ee u dhaxeeyay labada dal ayna labada dal isweydaarsan doonaan diblomaasiyiin. عبد الناصر صوماني Universal TV Johannesburg.